markii caawa dhan buugga laga hadlaayay oo siyaabo kala duwan looga hadlay oo kliigna la daawaday lala daahay oo saacaddan la soo gaaray hadda iyo bilow qoraalkii qorin buugga hadda iyo kow muxuu ahaa ma aha meeshii ugu xiiso badnayd iyo waktigii ugu xiiso badnaa laba sababoodba waa mida horta waktigii waa dheeraaday markii waktigu dheeraadaba waa la daalayaa waa midda labaade buuggii si baahsan ayaa looga hadlay waxay haddaa marka marka koobaad inaan ku bilaabo inaan ina salaamo oo aan u mahad celiyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa iyo aqoon-yahanada iyo dhallinyarada iyo warbaahinta iyo cid kasta oo munaasabaddan ugu casuumay oo ka qayb gashay ama ha helaan fursad ay ku hadlaan oo ka qaybgalkooda iyo fikirkooda ay noo soo gudbiyaan ama ha noqoto inaysan fursaddaas helinin waxaan aad iyo aad uga cudurdaaranayaa in aysan halkan soo istaagin oo ayna ka hadlin dad badan oo adinku aad ka mid tihiin oo mudnaa inay kelmad ka yidhaahdaan suurtagalla ma ah dadkoo dhan inay wada hadli karaan taas waa taas waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddigii qabanqaabiyey oo hawshaan isku duwayna waan u mahadcelinayaa qof kasta oo xafladdan buuggan madaxafka cadaabta oo anigu aan qoray caawa halkan u yimid oo ka soo qaybgalana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin gabdhuhuna ay ku jiraan waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo midda iyo bugaagta dadka halkan hay-adihii ciidanka booliiska iyo hormood shirkadda hormood iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha muxuu ahaa bugaagta jumlada ah oo la qaatayna waxay ila tahay inaa ilaalo iyagana waa mahadsantihiin waxaan kaloo u mahadcelinaya qof kasta oo buuggii iibsaday qorayaashu waa jecel yihiin in buugta laga iibsado intaas markaan ka gudbo suurtagal ma aha in aan buuggan si ballaaran aan uga hadlo waxaan ogolaanay waqti laakiin waxaan is leeyahay hal qodob ayaa muhiima oo malaha intaan buugga iyo faahfaahintiisa iyo jabtarrada uu ka kooban yahay iyo in ku dhan 400 bayt wey suurtagal maaha laakiin waxaan is leeyahay dhalinyarada halkaa fadhida inaan buugga gudihiisa ka sheekeeyo waxaa uga muhiimsan oo ka muhiimsan buugga way gadan doonaan way akhriyi doonaan laakiin mabaadi'da buuggan in aan qoro ay ku dhisan tahay iyo duruufaha xiriirka la leh oo qofka buuggan yani markaan qorayay muxuu ahaa xaaladaha ila soo gudboonaanay oo laga yaabo tajrubadaanu inay iyagana ay u taalo tajrubada koobaad marka waa tajrubada run iyo geesinimada waxba ha qorin haddaadan awood u lahayn in aad run sheeg runtuna geesna wey marka waxaan u bixinayaa tajrubada run qofka wax qorahaya waxa laga qoraya waa kala duwan yihiin bugaagta noocyadooda waa kala duwan yihiin laakiin marka siyaasadda iyo taariikhda iyo halganada iyo qaramada iyo dowladda ay taagan tahay waxaa number 1 aniga ila ah mas'alada runta mas'alada tajrubada runta tajrubada runta marka maxaa wuxuu inay run yihiin lagu garanayaa
ما jirtaa cabir lagu qiyaasi karo waxaas inuu ku yihiin waddanka waa ka qaxay qurbaha joogay 23 sannadood ka bacdi baan ku soo noqotay daadka laga sheekeynayay maskaxaan iyo jirahaan janji baa igu dhacay intaan maqlaa oo xataa hawada iyo cimilada iyo noloshii Soomaaliya iyo Afrikaba hal mar aan ka baxay 23 oo Afrikana xataa aan dib ugu soo noqon ayaan ku soo noqonayaa cuntada dhadhankeedii baa isbedelay jirkeyga samaysankiisii hawadii u bartay baa isbedeshay waxaan garanayaa markaan imid 60 ka bacdi waxaa igu dhacay dysenteriya hoteelkan saacadii baan kusoo tegaya waxay ka tirjumaysaa jirkeygu biyahan cabahayay iyo waxaan cunahayo ajnabi ka dhigay muxuu ahaa jirkeyga wataa u diidayo ka waran dareenkaaga iyo hawsha kuu socota oo aad ka fakaraysid seeda u qori doontaa mushkiladii waddanka Soomaaliya ka dhacday Soomaaliya maxaa ka dhacay wixii dhacay maxay ahaayeen yaa geystay goormay ahaayeen caddayn baa loo hayaa xaggee baa xogtaasi kala jirtaa waxaan rabaa marka maadaama caawa halkaa aan fadhiyo inaan u mahad celiyo marxuumiin dhintay oo ugu yaraan 7 qof ah oo buuggan igala qayb qaatay oo maanta midna uusan ka noolay oo kulligoodna buugga magacyadooda ku jira oo aan isleeyahay haddii aynan yacni haddii aanan anigu hawshaas galeen laga yaabo xogta dadkaa dhintay ay hayeen inay maanta buuggan ama buug kale midna ayna ku jireen waxaana ka mid ah xogo muhiima iyo warbixino iyo xaalado aad iyo aad important u ah oo qaarkood ay ku saabsanaayeen dagaalkii 77 waxaan ka codsanayaa inaad ila ducaysaan qofku ma sheegayo dadkaa dhintay ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo cabdi maxamed sarax ayaa ugu dambeeyey xaaji dhagax ayaa ka mid ahaa maxamed nuur galaal baa ka mid ahaa xamse xuseen ha noolaato ayaa ka mid ahay muxuu ahaa cali baadiyow baa ka mid ahaa kabtankii diyaaraddiis muxuu ahaa Somali Airlines ee diyaarad Soomaaliyeed oo abduba ugu horeysay oo Addis Ababa laga dejiyay 84 kabtan xaaji dhagax baa loo jiray diyaaraddaas markay waxay u socotay sida markay ka soo noqoto oo berbera ku soo degto berbera ka soo raaci lahaa marka buugga waxaa ku jirta cabsi madhabka cadaabta cabsi baa ku jirta waa cadaab caadi oo ifka korkiisa ah waxaan jeclaan lahaa marka dhallinyaradu ay wax qorayso generationkiinaan ama cidda hadda hadalkaygaan dhegaysanay inay ogaadaan mas'alada runta daacadnimada iyo geesinimada ay dalbayso marka wax cadaalad laga falayo ay taagan tahay cadaalad in la falana qoraalka iyo fikirka qayb weyn bay ka yihiin hadaato kilibka waxaan ka sheegay dhinacna waxaa soo safanaya ciddii adiga kaa rabtay dhinacooda waxaad qoraysid waxaad daadacaysid waa qabiilkii waa beeshii waa kooxihii waa qaraabadii waa saaxiibadii dhinacna waxaa soo safanahaya xaqa runta daacadnimada iyo bini-aadamnimada dhallinyaradina waxaan kula talin lahaa mar kasta oo la nool yahay intaasba waa isdhinac ordacaya waa wada siman yihiin
هاللو دايما لهذا ماشي هنتا إيه حقا إيه جيش المدعي تاس أيام أوتن بيستا مجتمع يدلك يدول النمذا أكتر سنتين دلوا هذه اللفظ هذا التاريخ هذا يمر عاقل أيضا دلوا جروب كان لنا عن كسفن وجروب إيماجيني ذا سبعين يعني لنا عن كسفن أيضا اللفظ هذا رنتا دم بيوتا أنا ما كاتين الصومالي معي أنا كهذا إنه عرابي دعنا كذا عبي قف ويسوي التالي هذا وحبان كقرية وحان مرخاتك هاي إن عذاب دحمر أيوب مضميو صحيح كي حسين خليل وعن أمها علي ودعي أدو أسرع على قول بوجيسا لما إسبة صار جمهد بي SSDF أو غير كودا وأسمو لفتي سكملها أيوه يعني بختي دي يقول لي دي يوحي كده عاي أيوه بنانك صوتي هاي وجسمه واحد اللي موي تاسانا حالته وحكى قريوان تاريخ سوماليا دي مركا وحاد بودا إن أي بلابانيان وايو سوماليات أو سديارين هاي إني كقرينين إني حبكة يباش حبكة كل واحد أو عقلية بحوها عقلية واحد جيل معايا الحب كدر يبان إيو من الأول يعني حقيقة يعني دلوقتي نقول عادي عبتبه مكتبنا قف عن قبيل كنا عين لا تعتر قف عن قبيل كنا هاي وحو قري إن الوحي عنيين ولا يعني كبكي يقول عاي يقول عاي غير كم تعي وحال يقول وين كنا تاجر ولا رم والحين لواتن عطب بوجو وحاوي والربيع وكوي طبعا قيود ويكهوس بحيان لحية لبعتر وحال آذي تعالى الله دليرة الصومالية دليرة كل عليها ويحاول مسيرك وضنك عيني شوية إن أي بوغان أحيان بوغان مركب مريكان يوروب هي حتى نيروبي لتشوفه qiimaha ugu yar oo lagu gado waa $30 inta Nairobi hatta $30 baa laga gadaya laakiin halkaan waxaan ku shaabadeeyay $12 iyo 75 سنتي كمان نقول وكنت تلقل حكنت تلقلي إن وفقت اللي يرضى شاف الحين الصومالي ولا هاي ومد الصومالي وعلى شاف المدوبنا خبرته وقارنت هاي إن وأهلي كروب حتى مركز هدوس هاي الشرني وتودي يرجعون كلام مركز نتو هاي الكلام وعد عبتي وحان هو عبتي اللي بوجان كبر مركز عبتينا يوم وايو أنا قدرت أقول يا شوعة وبوج أنت أخلي بوج بتاعتي وأرجع أحسن ويعني شعور هان ينيران يعني ملك الهرقيسة اللي يسوى عيا قبل الله اللي يسوى عيا جودة اللي يسوى عيا قارتوه بحيرة الشقة هالقف قبل كريمة إلهي ما قود دري ومكة وحياة ديهيان أولياء بعض الله وإلهي بتقانا أدري نعم إلهي وقود وإدري لكن أولياء ما قبل على قطي واو إنا أولياء قولين لكن إلهي وإدري وحاك له بقى إجمال قليليسي والعقل قليليسي وبوك إنه يعني كانت عياري سنة مكيني أما الدولة أنا قلت أما عسكر على القطي أنا عيا إسماعيل قلي أنا عيا سفر هاي ويل لي هذا الليبان وقاعد عيا وكم من هاي تدل حسوق عليه وشكل بوك
dugsi la yiraahdo Maxamuud Axmed Cali oo degmada Kaaraan ku yaala sanadku waxa way 1991 bishii Febraayo waxaan ogaaday wiil baa ka badbaaday dadka 70 dhowr qof bay ahaayeen jabhad beelad baa leeyahay waayo wiilkii waa badbaaday adduunka xageedu ka jira yaa yaqaan wiilkaasi waa badbaaday hadda fiira wiilka badbaaday muxuu ahaa cadow tiifo oo jabhad beelada waxa suuqaysa ka soo jeeda ayaa wiilka qaawciisii أتذكر واحد يجي يقول لك لو يا رغاط سؤالك يا وكسر الحساب يا ولا عرر يا قول لي سوق جينا يا ويل كسات كوب بادية ويل كيو بس حاجاتك بعدها المكان ربنا وحكسره وهنا ويل كاهر هل سنة بيجو قاصي وقدم بيسينا عن ثاني سنة South Africa محوها جوهانسبرغ أيام وقدم التجي وقوة رئيسي عدوا تيفونا وحان قوة رئيسي يحاسكي صوبا دقمة بورنير يا ماي بورنير حانو ملالي بورنير هذيك الحدود ولا عايز يجي العلوم وكل شيء يشوف يسيبون halkaas bay marka yani runka noqonaysa tajrubada runka xasuuqaas ma dhacay goormuu dhacay iyo xasuuqa inta soo dhicin maxaa ka horreeyey see xasuuqa lagu imaanaya xasuuqa yaa geysanaya yaa ka badbaaday iyo wixii la mid ah xasuuqyadu waa ilaa dhow iyo 10 xasuuq weeye waqooyay ka dhaceen barbaray ka dhaceen balweynay ka dhaceen xamar bay ka dhaceen محوها كالكعي كدعين عوض كدعين إسماعيل كدعين جزيرة حمر بي كدعين دولة باقيستي قار وحاقيستي توهد بلاديو قار وحاقيستي قبائل قار وحاقيستي كوحدي ميديو حسوق يدا كالي المهمة كجيستي marka أنا وصلت كوريا محوها مرة إلى سيباهو بوجنا سيستماتيك إلى نروح مرة هو قدام عيا هاي سي عصر أبو قاب كله دابع كذي نوع يقدم بيه أي أبو قاس قدام عيا الكبر كيس أنا قطع وحال قدام عيا ودمada waxa lagu daawaco kuwa ugu qaalisan waa UK aad bay qaal u tahay buug yani tayada leh inaad haaweysatid inaad daabacdid adiga oo qof faraagad caadi ah waa bal هاد كبر وحاول أد قال المقنية وحاول تلقى كذي هاي وطلع خدوا عن تاي بوجان إن أفكك أجنبي جانا لغة التجمع أو إنجليش كا عربي هنا أي كبتاعي لكن هدي الله يسمو أنت على الترجمة ده عادل بوجا ولي قبيعة كتيرتا أبيض بحي تاي بوجا مركو صوب بحي حضر ولا أخي حال ليه حال هذا بقى كم قرصة وركت بوجي وقمار مركا دعوات اللي بعد سكن دشين أيها خصوصا كان جدي سكتيرة هالسكوية كده عاي بربرة إن قبل طلوا كده عاي إن تولد الكلام وكنت على جبل كمودك وبراجو دولة دي دواتها كده عاي وحصية لكن وقت ما يسمعها وحكى كم كان ليش اللي يرادو برعو حسوق كده عاية وهالقف كبت باغي أيال هرنا وراتو أماكن هاي أصلا أيال سواهي نكي وريسي أنا أقول لك وريسي دونا عسوق برعانا بوغا وسوق الجرا إيه مالك كلتو وحيابو لفلف كتيرو مركا تاسو كامل كنا قرية تبعدنا وحام بلاوية translation
English iyo Carabi in lagu sameeyo oo xataa dad aan Soomaali ahayna ay buugaan aqri karaan